xabsigii sanad buu markuu noo furaado socodkii ayay labadii sano dambe noo diideenoo qorraxdu markay dhacday adna qorraxda kama warqabno guluub yar oo halka ka lalmada oo guluub yar oo iftiinkiisa inta yaraaday jaallo u eg qolalka dhalada ka suran isaga maalinku ay qorrax iyo habeen marka waa diideen inay naga furaan meesha mar dambana laba sano meeshaan ku jiray laakiin warka waa heli jiray wadanka waxa ka dhacaya oo askarigu waa og yahay wadanku inuu iska corrupted yahay marka askarigu uu sameeyay ka saari karin laakiin hadaa wuxuu dirsatid iyo magaciisa wixii private marka waxa ku soo bilowday magaalada dagaalkii qabti hadda waxaan xasuustaa waxyaalahan ay loobin bay ka mid tahay 31 bishii ugu dambeysay December maalintii 31 ahayd oo axada ayaa 1990 ayaa qabti ka dhacday xamar marka bisha kale maalintii 11 ahayd January 91 ba xabsiga laga yaacay waan xasuustaa October-tii ugu dambeysay Maxamed Saad Barre ma dabaaldegin laakiin cafisyada iyo wuxuu sameyn jiray maxaabiista 32 qof baa Soomaaliya ka xira dil ku xukuna aniga iyo saaxiibkaybu ku reebay dilkii kii kale wuxuu ugu bedelay xabsi daa'im Soomaaliya aniga saaxiibkay baa kaga xira dilka ka xukunaa ilaa waqooyi galbeed ilaa koonfur ilaa Soomaaliya oo dhan maalinta uu dhacay aniga iyo Maxamed Maxamuud saaxiibkay labada yaasa wax dil ku xukuman jiray marka maxaa anaga naloo dili waay waa su'aal meesha ku jirta saddex sheer in ka fan loo geliyo haddana aan dilkii la fulin maxay ku dhacday waxay ku dhacday laba sababood waa mid nin Maxamuud Firin la oran jiro korneyl ahaa oo maxkamadda sare ee militariga haystay ayaa waxa u tagay markii xamarna la geeyay ninkii la oran jiray Faarax Xandulle oo saaxiibkay ayuu eedadiis qabay Faarax Xandulle Cumar Maxamuud oo marka Faarax Xandulle Siyaad Barre wuxuu ku yiri orod Hargeysa iyo Burcad aad dagaaladii baan socda Siyaad Barre oranay orod Hargeysa marka Faarax Xandulle wuxuu u tagay Maxamuud Firin من رأي قرودو wuxuu ku yiri Faarax Maxamuud Firin nimanka hoostaada ayaan laga bixin maxkamadda sare racfaan baan maaragtay leena nimanka ayaan hoostaada laga bixin wuxuu yiri wax kale aanu ma tari kare cadaalad ma jirte waxaan sameeynayaa nuqulka xukunkooda iyo kiiskooda oo dhan baan qarinaya marka warqadii la qoray oo garow oo laga qoray oo ninkiina xukumay warqadiina la ka qoray waxay sheegaysay xabsiga la geeyay saddexdeeda magac iyo in meel adagna la ku hayo inta muddo bil adilkeena la ku fulinayo warqadaas kiiska iyaga dhamaan laga hela ninkaas waa qariyay kiiski Maxamuud Firin taas qodob ay ahayd qodobka labaadna wuxuu ahaa nimankii xabsiga hayay ayaa si qabiil noo leeynayay oo umadu watay qabaa'il maarta uqdad qabaa'il baa dadka kala gashay niman xabsiga gacanta ku haya waxaan xasuustaa 14 saddex anaga qolka nagu la jidhay oo isku maalin la isku xiray oo la toogtay nin warsangeli dhulbaantay iyo warsangeli midkood buu ahaa laakiin reer gaaba ah oo naanaystiisa kole badhaqaaba la oran jiray badhaqa ninka oo labadii oo nin baa ku dhintay gacantiisa labada qabiil baa ka heshiiyay labada Siyaad Barre waa ka ogolaaday ninka in la soo daayo ninkii oo aan laba haysan oo Siyaad Barre dilkii ka cafiyay oo labada qabiil heshiiyeen oo magtiisi la kala qaatay nimankii kiiskiisa keeni lahaa xabsiga ka sii deyn lahaa kiiskiisa ay qariyeen marka dilkii hore uu ku xukunaa kaliya iyo kiiskii xukunaanta ahaa 14 kaasa lagu daray waa la soo dilay iyadoo qaraabadiisi u timid dadkiisa u yimid oo bari baa baxaysa la leeyahay marka layn qasdi ah baa ku socotay xabsiga dadka ku jira wiilal dhalinyaro afar ah oo saddex jaamacadaha ku jirto markii Siyaad Barre jilcay waxa bilaabatay wasiiradii reerkiisa u badnaa waatay iyo maartay madaxda kalaba
waxaa jiray waa tii laankaruusarada maaragtay dhalinyaradu laankaruusarada midabka ka buufinayaan guri adeerkiisu inta laankaruusar ka qaato guri kale oo adeerkiisa geysanaya midabkiina oo ka buufinaya qaarna waa lala fakfakaday oo waxa laga soo gadan jiray Itoobiya iyo meelaha waxaan xasuustaa 3 wiil oo mareexaanos 4 laba jaamacadaha dhigato oo waliba dhamaynayso la foole iyo mid koofiyad casta ah oo iyaga la kiisa wiilashaas wax kala ma dhimin baabuur adeeradood bay intay guriga ka qaateen oo buufiyeen bay baabuur guriga kale oo adeeradood geysteen si aad bare uu baqa waa khalkhalsanaayo wax alla wixii laangaruusar iyo wasiir leeyahay taabta hal dib afartiba wala dib afartaa wiil wala dib marka anaga waxa naloo dili waayay marka siyaad bare loo geeyo nimankan xabsiga madaxa ka waxay leeyihiin waa xabsi faaruqin baa loo baahay meeshii waa buuxsatay meel dadkii lagu haya lama arag dadkan la intay marka u dan leeyihiin bi qoriya waxa mar walba dhici jirtay inay iga bilaabaan saaxiibkay iyo aniga u horreyn jir labadayada ka soo hari jir siyaad bare waa loo sheegaya kiiskan waa kuma buu oranayaa ile qofkan kiiskiisi keena marka kiiskayga lama hayo markaasay waxay dhahayaan waa nimankii ayl kuwa xagga iidhiga buu leeyahay kayskoodu waa weyn yahay xagga iidhiga soo u lahaa yaa qabti dhacday xabsigii baa waxa ku soo daatay madaafiicdii ay ridayeen xabadihii ay ridayeen aan idhaahdee ay ridayeen mucaaradku USU xabsigii ku soo daatay askartii marka meesha wada ilaalinaysay ayaa is aamini weydo kala baxday marka daaroodku dhinaca Madiina u qaxay marka magaalada uga qaxay dhinacan qorrax ka soo baxa ayaana USU ka soo gashay magaalada askartii xabsiga dhexdiisii waxay kala istaagtay labadii jiho qolo walba waxay tir xagga ka soo baxa maxaabiista iyaga la cid ahayd sidaas horta looga daatay meeshaas looga daatay xabsiga marka anagana sababta loo dili waayay saasay ahay waxaanu ka war helay inuu maaragtay xitaa nuqulkii ii keena ma u dhihin marna inuu nagu gorgortamo baa xisaabtiisa ku jidhay ilaahay tiisa ka soo hormadhay sidaas marka maalintii 12 ay ahayd baa xabsigii laga daatay ninka saaxiibkay ah waxaan xasuustaa nin korneyl ah oo markaa xabsiga madax ka ahaa ayaa inuu dilo damcay ninkii in barsoon toos u dilo xafiiska dadkan la laayo oo maaragtay xafiiska laga xukumo nin fadhiyay oo saddex digla inuu ahaan u malaynayo oo ninka mar walba qori jiray ah in la laayo rabay iyo ninkii korneylka ahaa ninkii isku qabsaday wuxuu yiri wariyaa dawladdan daalinka oo dadka dhibaataysay bay ka halgamayeen dulmigeeda intaasoo jeer baan dabcay inaan dilo laakiin qiimaha ay leeyihiin oo aan dareemay baan qabiil ahaan u dili lahaa buu ee dambi ay ina ka galeen ma jiro maanta ay dawladii dhacday oo ilaahay badbaadshay wallaahi billaahi inaad ka dambaynin buu hadaa dishay wuxuu ahaa yarka fahada jifidiisu ahaa korneylku kan kala Saleebaan buu kan kala Saleebaan buu ali xoog sida la oran jiray ninka badbaadinay ka wax badbaadinay abaal baan u haynaa markii qabti dhacday inta wuxuu wax badan baan damcayna idin dilo rag baadna tiin raganimo ahaan baan idin dili lahaa laakiin ilaahay baa idin badbaadiyay saas uu nagu yiri markii dambana waa ka badbaadinay anu saaxiibkay baan la hadlay markii la yaacay saaxiibkay ma kici karo waa jaban yahay waxaan ku yiri saaxiib lama kabin xabsiga xataa lama kabin looma ogola dawladdu ma ogola in la kabo waxaan ku yiri saaxiibow waan ka qayla geynaya xabsiga aan ku jiro iyo meesha Madiina dhexdeeda dagaalku ka socda haddaan dhexda ku sii dhintana nabade haddii kalena in lagu qaado lagu yimaado waa ka qayla geynay marka dabadeed way markuu raba damcaya inuu dilo oo xabsigiiba la faaruqiyo ninkii kaliya meeshii yaal kii markuu ka cisho u diiday buu qaaday ninkii waa qaaday marka anagu waanu khafiif sida ilma caruurana loo qaadi karaa xabsiga waa ku rafaadna haddii qorrax malaha la waayo 3 sano qorrax maanu arag haddii qorraxdan la waayo iyo hawadan iyo waxa qofku waa yaraanaya wuu qaaday xabsiga dhan buu ka saaray xabsiga banaankiisa wada jidcado ma dhah buudhiga halka ama tulkaha kuugu yimaadeen ama hal ugu dila buu yiri aniga xil dambe igama ka saaray waa ninkii anaga inuu na dilo raadin jiray nin fariido ahaa oo rag ah
xaasaska askaraha xabsiga ilaaliya xaasaskooda kaamay ku degan yihiin baa meesha ka dhow isla markiiba warkii baa xaasaskii gaaray dadkan dad ah oo xaasas ah oo meesha soo yaaco xambaarsaday qaatay nin korneyl ah oo qolada xukunka maxamed siyaad barre qoladiisa reerkiisa ah yani shifidiisa kama wada mareexaan ah oo qaxaya bay haweenkii celiyeen waryaa qaad bay yiraahdeen ninkan uu qaaday isagii baa qaaday xagga geeyay bini'aadankan sida isugu xirxiran yihiin waa si cajiiba kii naldili lahaana waa kaa bixiyey kii korneylka meesha ugu xiranayayna waa kaa qaaday waa qaadayo meeshiisii buu keenay sidaasaan horta ku tagnay iyadoo weli madiina laga qaxidii ka socotaan u dhex tagnay xabsiga saasaan kaga baxnay Thank you.